kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeennimo. haddaba waa habeennimo talaada arbaca ay soo galayso taariikhduna waa 4 bisha 8 2026. haddaba caawa barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay intaynu kala maqnayn. ugu horreyn waxaynu ku bilaabaynaa war weyn oo la sheegay inuu ka soo baxay xafiiska aayatullaahiga Iiraan. haddaba aan idin tuso warkan iyo waxa laga qoray telefishinka ruushku leeyahay ee la yiraahdo RT ayaa wuxuu leeyahay xafiiska Mujtaba Khamenei waa aayatullaahiga Iiraan ayaa wuxuu ka jawaabay eedeymo iyo dacaayado la isla dhexmarayay oo ku saabsanaa iscasilaada madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian iyo mowqifka arinka uu ka taagan yahay aayatullaahiga waddanka Iiraan. haddaba warbixintu way sii socotay. waxaa leeyahay xafiiska xiriirka dadweynaha ee hogaamiyaha sare ee jamhuuriyadda islaamiga Iiraan Mujtaba Khamenei ayaa beeniyey isaga oo aan magaciisa si toosa u xusin hadal loo nisbeeyey Mohammed Bakhir Kharazi oo ku saabsanaa arinta iscasilaada madaxweynaha dalka Iiraan. haddaba bayaankan ayaa wuxuu si toosa uga soo baxay xafiiska xiriirka dadweynaha ee aayatullaahiga Iiraan. maamulaha haddaba waxaa la sheegay maalmihii u dambeeyey qaar ka mid ah hadallo loo nisbeeyey hogaamiyaha sare ee kacaanka islaamiga ayaa lagu faafiyey baraha internetka kuwaasoo nasiib darro lagu sheegay saldhig u noqonaya jahawareerinta ra'yiga dadweynaha iyo abuuridda kala qaybsanaan gudaha dalka Iiraan in laga shaqaynayo. haddaba sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay aayatullaahiga xafiiskiisa qoraalka lagu daabacay internetka ee uu qof ku sheeganayo jawaabta hogaamiyaha kacaanka islaamiga ee ku aadan warqadda madaxweynaha sharafta leh gebi ahaanba waa been oo waxba kama jiraan. bayaanku wuxuu carabka ku adkeeyey in isha rasmiga ah ee lagu daabaco fariimaha wararka iyo qoraalada la xiriira hogaamiyaha jamhuuriyadda islaamiga ay yihiin madasha warfaafinta xafiiska hogaamiyaha kacaanka. haddaba hadallada dhowaan ka soo baxay Mohammed Bakhir Kharazi oo ah wadaad xiriir dhow la leh qoyska hogaamiyaha jamhuuriyadda islaamiga Iiraan ee ku saabsan Mas'uud Pezeshkian madaxweynaha Iiraan ayaa si weyn loogu baahiyey warbaahinta Iiraan iyo baraha bulshada. ninkan la yiraahdo Kharazi ayaa sheegay in Mujtaba Khamenei oo ah hogaamiyaha jamhuuriyadda islaamiga Iiraan uu qoray haddii Pezeshkian mar kale iscasilo waan aqbalaynaa iscasilaadiisa. marka meesha waxaa laga abuurayaa oo la buunbuuninayaa war uu leeyahay xafiiska Mujtaba anagu ma qorin warkaas. hogaamiyihii inuu iscasilay hadda ka hor oo maaragtay waa madaxweynaha la joojiyey haddana hadduu iscasilo hogaamiyaha uu leeyahay waa aqbalaynaa. marka meesha waxaa la abuurayaa tashwiish ku saabsan in madaxweynaha Iiraan iyo aayatullaahiga iyo madaxda Iiraan uu khilaaf uu ka dhex jiro. macnaha noocaas ayaa la abuurayaa. marka xafiiska wuxuu beeninayaa arinka ku saabsan warkaas. wuxuu leeyahay wax ka jira warkaasi ma jiraan. qodobka marka halkaas kaga gudbaynaa. sheeko kale ayaa iyaduna soo baxday. nimankii Israa'iiliyiinta waxaa leeyahay ciidankooda badda dhoolatusay badda ka samaynayaan iyagoo u diyaar garoobaya dhoolatuskaas u samaynaya sidii ay iskaga caabin lahaayeen Iiraan marka ay badda soo weerarto. badda maxaa ku yaala meeshii biyihii laga samaynayay maaragtay gaaska laga soo saarayay Israa'iil gaaska badda meesha ka soo saaraysay tamarta meesha laga dhalanaya wixii oo dhan badda waaye. Iiraan marka waxay tiri haddii Mareykanka uu isku dayo inuu annaga kaabayaasheena dhaqaalaha burburiyo weerar weyn nagu soo qaado Israa'iil meelaha aan annaguna nagta ka saari doono waa meesha gaaska ay ka soo saarto. wana isha kaliya ee Israa'iil ay dibadda u dhoofiso gaaskaas waaye. gaaska marka hadda saan u difaacan lahayn gaaska ayaan dhoolatus samaynaynaa ay leeyihiin ciidanka badda. waxaana ku jirnaa istinfaar wax la yiraahdo
annaga heegana ku jirnaa mar walba Iiraan wayna soo weerari kartaa marka Iiraan aan ka baqaynaa inay kaabayaasheena iyo ilaha dhaqaalaha aan haysano ay naga burburisay leeyihiin haddaba marka la aan tuso telefishinka Ruushka ayaa wuxuu leeyahay markii Iiraan ay hanjabtay kadib Israa'iil waxay gashay heegan dhanka badda ah haddaba warbixin lagu daabacay qaar ka mid ah warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegayaan hanjabaadihii ka yimid Iiraan dhawaantan oo ahaa inay haddii weerar weyn lagu soo qaado iyaduna ay bartilmaamaysan doonto istaraatiijiyadda goobaha halbowlayaasha dhaqaalaha gobolka haddaba meelaha ay tilmaantay Iiraan inay weerari doonto oo ay ilaamisay waxaa ka mid ah goobaha tamarta laga dhaliyo Israa'iil iyo meesha korontada warshadaha biyaha soo saara sidoo kale gaaska meesha laga soo saaray ee badda Mediterranean ka leeyahay oo Israa'iil ay halka gaaska ka soo saarto hadda marka waxa la ciidamada badda Israa'iil waxay bilaabeen inay halka dhoolo tusyo ka sameeyaan waayeen marka sheekada ayaduna halkaas ay maraysaa warka kale wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa goordhow war soo saartay maalmahan waxay wada hadallo u socdeen Oman iyo Iiraan waa labada wadan ee Hormuz iyagu dariska la ah marka waxay leeyihiin Iiraaniyiintu hadda wada xaajoodkii noo socday meel fiican oo noo maraya heshiis inaan gaarno mar dhow waxa dhan aan ku heshiino sidii loo mari lahaa meesha ayaanu ku heshiinay haddaba markaan idin tuso warka ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa soo saartay war caawa waxay leedahay wada hadalladii noo dhaxeeyay annaga iyo saldanada Oman waa wada hadallo meel wanaagsan maraya afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa la hadlay saxaafadda wuxuuna sheegay iyaga iyo saldanada Oman inay aad uga wada hadleen habka amniga ay u marayaan maraakiibta dhanka Hormuz haddaba wada hadalladii noo socday annaga iyo Oman waxaa diiradda lagu saarayay arinta maraakiibta galaysa iyo kuwa ka baxaya dhanka Hormuz iyo sidii amnigooda loo damaanad qaadi lahaa dhanka kale saldanada Oman iyo wuxuu sheegay iyo Iiraan inay yihiin labada dawladood ee iyagu markaa mas'uulka ka ah marinbiyoodka Hormuz American iyo qabqab iyo wax ka gala malaha meesha annaga waaye dadka meeshan go'aankeeda gaari kara dadkan kale oo dhan waa iska hadlayaan wax ka jira marka malaha leeyahay warkaas marka Iiraan waxay leedahay meel fiican anaga iyo Oman isla marsiinaynaa waanu ku heshiinaynaa hawshaas heshiiskaasna mar dhow ayaan shaacinaynaa ilay